بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرسي كتبناد waxaan soo haynay tafsiirkii laa ilaaha ila allah macnaheedii in wax lagu fahmo waynu soo sheegnay banaankan waxaan ka gelinaa maxamedun rasuulullah rusushu waxay tahay rasuul macnaheedu waxa weeyaan waa ergo ilaahay adduunka le u soo diray dadkan oo diinta adduunka ugu soo dhiibay wuxuu doonayo wuxuu diidayo uu u soo dhiibay oo hadalkiisa la maqlayo oon la diidaynin wixii uu yidhaha adduunka le ku dhaqmana lagu dhaqmayo rasuulku macnihiisu waa caynkaas waa safiir halkan ilaahay dhulka u jooga marka qaala tacaala can ubadat bn saamit qaala qaala rasul sal lla alay slam man shahida an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waana muxamadan cabdahu warasuuluh waana ciisa cabdullahi warasuuluh kalimatun alqaha ilaa maryam waruuxun minhu waljannatu xaq wanaaru xaq adkhalahu lahu ljannata calaa ma kana min alcamal ay ninkaa adimka leeyay qira ilaah mooyaane xaqulcabad ilaah mooyaane ilahayna abuuro mooyaane inaanu ilah kala jirin oo wax loo sharaakay aani jirin maxamedna inuu yey addoon allah oo rasuulkiisiya soo dirtay ciisana inuu isaguna addoon la leeyahay oo rasuulkiisa uu soo dirtay yahay oo uu ka abuurmay kelimad kun oo maryamna adimka leeyay ku ganay oo arwaaxda uu ka mid yahay ilaahday jannaduna xaq tahay naartuna xaq tahay ninka sidaa qira ilaahay jannadu geliyaa camal kastaba ha lahaadeen marka waxa weeyaan haddii aanu aakhire la tegin shirki hadduu shirki galo inta adduun joogo hadduu ka toobad keeno ilahay waa ka dhaafaya laakiin hadduu aakhire shirki la tago adimka leeyay laga dhaafi maayo naartu ku waarayaa haddii shirki ka soo hooseeya ninka adimka leeyahay ilahay ama uu iska cafiyaa ama intuu adimka leeyahay laga abaalmariyo dembigii u galay ayaa akhirkiisa jannada la keena marka haddaba ciise iyo nebi maxamedba labada baa lagu xadgudbay halkan rasuulka laba addoon buu ku sheegay xadiisku laba addoon inay yihiin saasaa adimka leeyahy inaanay ilaahay ku shuqul lahayn oo ilahayba ku shuqul lahayn oo labadaba waa lagu xadgudbay labadaba ilaahyo ayaa laga dhigay sidaan xagga dambe kusoo sheegi doono ciise haddaynu ka horreyno aayaadka tilmaamaya qaala tacaala ilah wuxuu yihi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waqaala almasiixu ya bani israa'iil acbudu llaha rabbii warabbakum inahu man yushrik billahi faqad xarama lahu caleyh aljannat wamawaahu naar wamaa lidaalimiin ansaar way kufriyeen markuu yidhi ciisa ilahaya ciisena wuxuu ku yidhi reer bani israa'iilow rabbigay iyo rabbigiin caabuda ninkaa adimka leeyay wuu shariig yeelaa jannadu waa ka xaaran hoygiisuna adimka leeyay waa naar hoygiisuna waa naar cid uga gargaartana ma heli doono qaala tacaala laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha thaalu halaatha ma min ilahi ilaa ilaahu waxid walam yatmac maa yaquuluun la yamasna aladiina kafaruu minhu cadaabun aliim xaqiiqa way kufriyeen kuwa yidhi in ilaahay saddexdu ka mid yahay thaalu halaatha weeyaano saddexdaa isku ilaah bay yidhahen maxaa weeyaan waa ciise iyo maryan iyo ilahay baa saddexdaa isku xidhayaan marna waxay isku xidhayaan ciise iyo ilaahay iyo ruuxulqudus malka jirgii ku afuufay adimka maryam marna saddexdaasi ku sheegayaan marka intaasoo meeladoo kala baxeen ilahi wuxuu ka daayo iska daayo haddaa hadalkaa deen weydaan cadaab kulul baa geli doontaan bur ilaahay ka toobad adimka le ka tooba weydiisto ka istakfurolesta ciise wuxuu yidhi man masiix bna maryam rasuulun buu ahaa buu yihi hortiye rasuul baa timi oo tagtay hooyadiina sidiiqaad baa rusheeg badan waxay ahayn dad cuno u baahan oo fuqaraa aan waxba haysanin oon ilaahnima noqon karin qul waxaa tahay maxamedow atacbuduuna min duuni illahi maa laa yamliku lakum daran walaa nafcan wallahu samiicun caliim ma waxaa caabudaysaan ku dhawaa layidhi intaa la ka sugaysa ciise iyo
يا أدم قال يا مريم حبان يدين هين وحنا دي يالك وحنا دي سريني يا كوس عبد السنبليل قل بحث كذا هذا يا أهل الكتاب ده لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا هواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء سبيل قوم هدي مكالي هاي دينتي نكعد بنا باليد الكتاب وإلهي حكى شيء دين وحنا هاي إلهي ذكورني أنا راعينا هوذا يربطاك قوم ضلوا هبابي هرو هبابي هذا ضد بدلنا هبابي وذي حقنا كبيري آيات كانوا حوالين سورة تقدم كليه لبيا تطباتا إلى تطبيع تطباتا سورة تقدم كليه المائدة مركا ولادadaas هراعينا بالليهي انت اللومين ضد بدلنا اللومين إياه ودادوا آيات كانوا شيء إياه وحيلي واتخذوا من دونه واتخذوا حبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم ما أمروا إلا يعبدوا إله واحد لا إله إلا سبحانه عما يشركون وهو سورة التوبة كوبيو صدر أي اتخذوا وحي ياشين حبار تود وعلماء اليهود ورهبان وعلماء النصارى ربي يالبا كدكتين ويكون الدعين باطل كون الدعين وحي حارتين حارة كدكين وكو يري عيسى يا مريم وإلهي وكو يري كقاتين كراعين كوا أي كتلقاتين ساسي أي نكو عابدين بل ساسي كو عابدين قال تعالى يتكلم وعلي وأتكت أن محمد قل أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الحق إنما المسيح ابن رسول الله وكلمة الله قال مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتوا خير لكم إنما الله إله واحد آيات كان مرة صار عنه واسيو كلاه هكو حد قول بايد أهل الكتاب وهديم كلاه عيسى وحويان وحكوا أبورمي وأضون الله كن فيكون بكوا أبورمي وأرواح بخمد يهي آمنة إلهي رسول سيزوردن أنا أرينا صدح هذا اسكو لها مركا إلهي سبحانه وتعالى صوّده وحوري لا يستكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا ملكة مقرب ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسوف يحشرهم بالله جميعا آيات كانوا حواليان بقول لك كوبي تضباطا إلى لبيت تضباطا سورة تدمك النساء أي أكو حد كتبنا باليدي دينتي نو وحان حق هين هدمك ليه كشيء عيسى وحويان أطونا لوي آمنة إلهي يرسوش يسوع دمان وإسكده ستاسكوا لها عيسى كمو سنتاجين إنه أطون إلهي هذا يا ملاك مذنبة مقربيتي كادم كلي كسنتاجي ككبرنا ده إلهي هدم كلي آخر هدم كلي كابال مريضون نبي عليه الحديث وحكولي إياكم والقلو وإسكا إلهي يقولكم قولوا حويان درجات هاي عدة سي متى درجتي هالممر مركزيين عيسى يا مريم هي هالكاسي يقولوا كوكانين مركا إسكا داية ورتاسي هورا إيه كوك تطبنا خلمي أنا كنا لا تضروني كما ضرت النصارى ابن مريم فإنه عبد فقول عبد الله ورسوله أي أنا قلنا هاي كريه لنا استخدم كله هاي نصارى أي أكريه شيء عيسى يهودي أو إلهي يوقد جن أنا أضام بان هاي أضام كله ده أضام كإلهي ده استخدم كله هاي كوشة مركا إلهي أضام كله هاي إنه أضام هاي ما لكرنه كوشة وحوري قوله تعالى إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعله مثلا لبني إسرائيل وسورة الزخرف وكلامها هاي أضام بوها أنا أقول معيني نبي نبدي رسالته هي معجزاتك حتى مركي أدم كله ولا شيء هو يدي ولا تميد ضدك إلهي مريم واحد سيتاوم حي واحد تي أسقي فرصة كفرت الله هذا أسقو واحد سيما نور هذا الله إنه خير تبعنا أسقي لك هذه قوله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم مكان في المهد سبيع قال أوحولي
إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا إلا لقى قالوا ذلك عيسى بن قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنه يقول كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سورة مريم كواب يصدر إلى لحية يصدر markaas ugu dhawaaqo anu adoon nahay kitaabku ilaahay siiyey nebi baan nahay ilaa markaa laga gaadho halka aayadda ugu dambaysa uu leeyahay idaa amran haddii ilaahay amar gooyo kun fayakun buu ku abuuray rabbigiin caabudo jidkii toosna waa kaasuu yidhi jidkii toosna waa kaa wabilaahi towfiiq.